assalaamu calaykum. waxaa jira waddan macquul ay tahay 99% in aadan maqal magaciisa kuna aadan fikirin inuu jiro, waana mid ka mid ah waddamada ku yaala koonkan aan dushiisa ku noolnahay, gaar ahaan waqooyiga Mareykanka. waana qaran yar lehne madaxweyne calan u gaar ah. waxaa sidoo kale dalkan laga isticmaalaa lacagtan, wuxuuna sidoo kale leeyahay ciidan iyo muwaadiniin. xagee buu ku yaalaa dalkan? yaa madaxweyne ka ah? tirada dadka ku noolse intee la eg yihiin? muuqaalkan ayaan ku faahfaahin macluumaad kasta oo ku saabsan dalkan yar. dalkan aan kuu sheegayo macluumaadkiisa waa dal yar kuna dhex yaala Mareykanka, waana waddan yar oo raadinaya aqoonsi caalami ah. iskiis ayuu nagu dhawaaqay madax banaani. wuxuu ku yaalaa waqooyiga dalka Mareykanka, wuxuuna leeyahay calan u gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dowladaha kale ee caalamka, astaan qaran oo lagu garto lana daaro xilliyada loo baahan yahay. muwaadiniin ayuu sidoo kale leeyahay. Joe Bidenna kama ahan madaxweyne, waxaana madaxweyne ka ah ninkan. dalkan waxaa lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Malaysia ama Republic of Malaysia. Jamhuuriyadda Malaysia waa dal iskiis ugu dhawaaqay madax banaani, wuxuuna raadinayaa aqoonsi caalami ah. wuxuuna aqoonsi ka sugayaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolada dalkaasi Mareykanka oo ilaa iyo hadda uusan ka helin aqoonsi rasmi ah. caasimada dalkan waxaa lagu magacaabaa Washington oo ah magaalada ugu weyn ee jamhuuriyadda dalkan. waddankan waxaa madaxweyne ka ah madaxweynahan oo lagu magacaabo Kevin Beff, oo ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkan. marwada koowaad ee dalkanna waa tan, waxaana la yidhaahdaa Adrian Beff. haddii aad doonaysid inaad gasho dalkan, waxaa meesha laga galo ku arkaysaa qoraalkan sidan ku qoran oo ah wuxuu halkan ka bilowda kama tirsana Mareykanka, waana Jamhuuriyadda Malaysia. waa xasuusin qof kasta la xasuusinayo inuu ogaado in Jamhuuriyaddan Malaysia uu ku dhex jiro. tirada dadka ku nool dalkan ma dhamo 40 qofood, waana 30 iyo xoogaa. wuxuu leeyahay sharciyo aad u adag, waxaana ka mid ah in gudaha dalkan aadan la geli karin wax kasta oo halis caafimaad keeni kara, baco tiro badan iyo agab kale. waxaa sidoo kale ka mamnuuc ah nuuc ka mid ah kalluunka, waxaana sidoo kale sharci darro ah in dhibaato aad ku dhex abuurto dalkan kana dhex samayso. hub halis ahna gudaha dalkan lama geli kartid. shuruucdaanna ma ahan kuwa iska qiyaali ah, waana lagu ciqaabayaa haddaad ku xadgudubto mid ka mid a shuruucyadan. Jamhuuriyaddan Malaysia waxay sidoo kale leedahay calankan oo ah calanka rasmiga ah ee dalkan. waxaa sidoo kale laga isticmaalaa lacagtan, magaceeda oo u bixiyeen Valora, oo ah lacagta rasmiga ah ee laga isticmaalo gudaha Jamhuuriyadda Malaysia. waxaa looga hadlaa 3 luqad. luqadda koowaad waa luqadda Ingiriiska, luqadda labaadna waa luqadda Esperanto, luqadda saddexaadna waa luqadda Isbaanishka. cabir ahaan dalkan wuxuu ku fadhiyaa cabir dhan eber 53 kilomitir laba jibaaran, taasoo ku muujinaysa in dalkan uu yahay mid aad u yar, aanan weyneyn. dalkan sidoo kale ma aqbalo dad cusub. haddii aad tahay qof cusub doonayna dalkaas inuu ku noolaado, laguma ogola. muwaadiniinta ku nool oo keliya ayaana loo ogol yahay, laakiin dalxiis ahaan waad u tegi kartaa dalkan. halkudhigga u gaarka ah ee dalkan waa haddii aanan wax la maalgelin ma jirto wax la helayo, waana halkudhig u yaqaano qof kasta oo ku nool Jamhuuriyaddan Malaysia. haddaba waxaa jira dalal badan oo iskood ugu dhawaaqay madax banaani u gaar ah sida dalkan, laakiin aanan helin aqoonsi caalami ah. dunida way ku badan yihiin dalal noocan oo kale ah, waxaana laga helayaa dalal ku yaala Afrika, Asia, Yurub iyo waddamada Latin America. waddankan iyo waddamo kalena waxay sugayaan in mar uun ay helaan aqoonsi iyo madax banaani u gaar ah oo la wada aqoonsan yahay. markastana waxay dadaal dhan kastaba leh ku bixinayaan si mar uun ay u noqon lahaayeen dal la aqoonsan yahay. Jamhuuriyaddan Malaysia aqoonsi kama haysato dalka Mareykanka, mana ahan dal dowlado waaweyn ay aqoonsan yihiin, laakiin dadka 40 qof aanan gaarayn waxay ku rajo weeyihiin in mar uun ay helaan aqoonsi heer caalami ah. muuqaalkii aan kaga sheekeynayay Jamhuuriyadda Malaysia intaan ayaan ku soo koobayaa. waxaan filayaa in waxuun aad ka faa'iiday. maalinta berri iyo muuqaalkeena xiga waa anigoo ah Jula Shaakir oo idin leh, waxaan idinkaga tegayaa ammaan Allah. fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena
ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.